بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب والاليال وولالكين فتحي iyo darsigeennii sagaalaad oo ka mid a duruustii taxanaha ahayd ee inoo socotay, taasaynu kaga hadlaynay fadlu cashri aluwali min dilxijati wa axkaamu alciidi waaludxiyati wa ayaamu tashriiqi. waxaa weeye darsigeennu waa kii sagaalaad, waxaynuna ka bilaabaynaa biidni illaahi tacaalaa qodobka 11 oo ka mida 12 qodob aynu dhahnay waynu kaga hadli doonaa mawduuca biidni illaahi tacaalaa. waxaynu raacinaynaa qodobka 12 oo ah qodobka ugu dambeeyey 12 qodob aynu dhahnay mawduuca waynu kaga hadlaynaa. sidaa daraaddeed darsigeenna sagaalaad waa darsigii inoogu dambeeyey ee aynu ugu talagalnay bal wixii rabbi inaga waafajiyey inaynu kaga hadalno mawduucan isaga ah. qodobka 11aad waxaa ciwaan u ah saynu horaanba sheegnay almukhaalafaat allatii yaqacu annaasu fi ayaami alciidi مثل الحفلات الباطلة وكالسماع الغنى ومشاهدة الأفلام المحرمة شرعا واختلاط الرجال بالنساء اللاتي ليس من المحارم وغير ذلك من المنكرات. qodobka 12aad isagana waxaa ciwaan u ah waxa loo yaqaano altahni'atu biyowmi alciidi. ciidda laysugu hambalyeeyo iyo tahniyadda laysu dirdiro, iyadana xukunkeedu muxuu yahay? ma waajiba, ma sunna, ma mubaaxba, ma xaaraamba, ma makruuhba, maxay tahay? labadaa qodob oo qodobka 11aad iyo ka 12aad ee duruusta ugu dambeeya aan ku soo koobi doonaa. aan ku horayno qodobka koowaadi waxaan u jeedaa qodobka hore waxa weeye waxyaabaha mukhaalafaadka ah een shareecadeenna ku bannaanayn ay waajibka tahay dadku inay ka fogaadaan. hadday ku dhacaanna camalkoodu habaa'an manhuuran uu noqon hayo, iyo ma garanaysaa hal bacaad lagu lisay, ama 100 soonoo bakhti ku afur camalkoodu noqon hayo, kaas ooy dadku ku dhacaan maalmaha ciidda ah. waxyaabaha mukhaalafaadka ee shareecada khilaafsan ee camalkooda dadka baabi'inhaya, habaa'an manhuuran iyo hal bacaad lagu lisay camalkooda ka dhigahaya, waxyaabahaas inaynu farta ku fiiqno. waxaa ka midoo kow ka ah xafladaha ciidda. maalinta ciidda marka la tukado, dadku waa la farxaa iyo waa la damaanshadaa bay maqleen. waa la farxaa iyo waa la damaanshadaa wuxuu ilaahay alla raalli ka yahay, shareecadeennuna kuu bannaanay ay aynan wax dhibihii ku jirin, rabbina raalli kaaga yahay baa lagu damaanshadaa. oo hadday dhallinyaradu ma garanaysaa ama ay bootin dhisato, ama ay toog barato, ama ay lagatan iyo ma garanaysaa iyagu laacdan u gooni ah, waa raggan ka hadlayaa, ay intay meel tagaan ku ciyaaraan
siday saxaabaduba samayn jireen oy feesta dareemaan oy soo jimicsadaan ay soo luga baxsadaan ama ay orotamaan ama ay ma garanaysaa intay hool ama dhul isugu yimaadaan kale oo weyn is-halxidhaaleeyaan oy diinta alle iyo ma garanaysaa iyagu yacna tartan iyo musaabaqaad samaystaan maalinta ciidda ah hoolal intay karaystaan halkaa ay khayrka iyaga oo diintiina baran khayrna ma garanaysaa ku tartamahaya waxyaabahaasoo kale madadaalana waxa weeye muxuu ahaa yacna way tahay iyo feesto iyo ma garanaysaa xaflad iyo asxaabtii oo isu imaan way tahay waana waxaa la raalli ka yahay inaad qur-aanka ku tartantaan oo diinta ku tartantaan oo su'aalaha isweydiintooda aad maaragtay iyo siirada nabiga ku tartantaan oo wax khayr ku jira ku tartanto waxyaabo badan buu qofku ma garanaysaa yuu ku damaanshaadi karaa waa hadday dhegihiisa iyo qalbigiisu yihiin kuwa xaqa u duleela haddii ay yahay waxa weeye haddii uu yahay weeye oo waxa fiican wanaagga aynu u naqaanaay waxaad adigu wanaagga u taqaanaa dad baaban wanaag u aqooninba iyaga oo isla markaaba ku dhihi boring weeye waxaas bay kaa horkeenayaan waxaas kale waaban ku daali bay ku dhihi qaarkood xafladahaasoo kale qaar baa marka waa la damaashaadaadii waxay sameeyeen waxa weeye meelo gurubyo isugu imaan markaasaa xaflado la qabsan ama waa lagu xatrayn oo dhaantadii wadaadada lagu ciyaari anigu dhaantada wadaadadan dhahaa xatradee ama dhaantadii wadaadaday ku qabsan oo waanu xatrayn bay dhihi markaasay maaragtay balaayooyin iyo shirkiyaadkii bay dhex boodayaan ama dhaantada ahayd ee kale aynu naqaanay ee maaragtay tii caamada ayayba wiilashii iyo gabdhuhu isdhex boodi oo sidii geel horweyne laysku sii dhex dayn ama dhaanto ku tilmow muxuu ahaa ku tilmaan ama adu walasaqa ku tilmaan ama ma garanaysaa saar ku tilmaan ama buraanbur ku tilmaan kale ama ma garanaysaa muxuu ahaa batar maaragtay ku tilmaan ama hadba ama shirib ku tilmaan waxay soomaalidu ay isticmaasho ee gobolladeeda kala duwan ay isticmaasho mid dooniba ku magacow wax munkaraad ah oo wiilal iyo gabdho laysku sii dhex daayey ah oo ilaahay lagu cadho gelin waa maalin farxadeed ciiddu oo waxaa la rabaa adna inaad faraxdood nicmada alle ku faraxdo uu ku dhammaystiray iyo khayrka alle uu kugu manaystay ilaahayna aad raalli geliso haddaad isla maalintii sidaa ahayd rabbi ka cadhaysiisa ka warran oo weliba laga yaabo dhowaan markay dhallinyaradaasi ay markaa ay isdhex boodaan shay kaloo ka weyn oo munkaraad kale in looga sii gudbo iyaga oo laleeyahay waa ciiddii iyo damaashaadkeedii waxaa kaloo ka mid ah maaragtay simaacu laqaani in markaa ma garanaysa heesaha ay daartaan dadku gaar ahaan qolyaha saxaafaddu ay maaragtay ay dhahayaan dadka dhagahoodan u raaxaynaynaa waa ciid markaasay wax munkaraada sii daynayaan oon ilaahay raalli ka ahayn oo ummadda dhagahooda wasakhaynayaan waxaasoo kale wax maaragtay ma aha dadka muslimiinta dhaqankooda ka mid ma aha dhaqan wanaagsan ma aha waana waxa weeye waa wax dadka akhlaaqdooda iyo maaragtay xagga anshaxaba ku xun weeye wax wanaagsan baa maaragtay yaa dadka loogu raaxeeyaa munkar inaad faafiso waa dhibaato aad u weyn weeye marka heesaha oo kale waxaa weeye waxyaabaha dadku ay dhahaan waanu ku damaanshaadaynaa waxaa ka mida oo kale in filimaanta xunxun ee muxaramka ah ay markaa intay dadku yacni in la daawado ama shaleemooyinka xunxun ee ama jinsiga ku saabsan ama qalaad adiga oo ma garanaysaa shay khayri oo weyn soo dhammaystiray oo laga yaaba 10 inaad maaragtay 9 berina soomanayd haddana maalin maaragtay khayri ah yacni ku dhex jira inaad shay muxarama aad markaa daawato waxaa kaloo ka mida ma garanaysaa ragga iyo dumarka oo isdhexbooda oo markaa ay khalwa dhacdo ama wax munkaraad ahoo ka daranba yacni uu ka dhex dhaco dadka maxaarimta ah iyo waxyaabaha iyo wixii lamid oo dhanba inta aan sheegnay iyo wixii kale ee lamid aba waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha mukhaalafaadka ah ee ciidda ma garanaysaa dadku
marka ay maaragtay yacni maalinta ciidda intaasoo dhanba way dhacaan. waa waxyaabaha in laga digtoonaado loo baahan yahay. darsigeenna ama si guud markii mawduucaba laga hadlahayo qodobka 12 ee ugu dambeeyay waxa weeye attahniyatu biyowmi alciid, in laysu tahniyadeeyo maalinta ciidda, ama ciidulfitri ha noqoto ama ciidul adxaa ha noqoto. in laysu tahniyadeeyo ma sunna ma waajiba ma xaaraanba ma mubaxba? culimmadu waxay leeyihiin laa ba'sa bitahniyati annaasi bacduhum calaa bacdin fi lciidi. inay dadku isu tahniyadeeyaan maalinta ciidda wax dhibihii kuma jirto. saxaabaduba way samayn jireen qaarkood, wax dhibihii kuma jiro inuu qaarkoodba qaarka kale u tahniyadeeyo, wax dhibihii kuma jiro. gaar ahaan haddii ay sida saxaabada qaarkoodba ay samayn jireen marka ay leeyihiin oo kale taqabbal allaahu minna wa minkum. inay sidaas iyo maarata waxyaabaha la midka ah ay sidaa isugu tahniyadeeyaan wax dhibihii kuma jirta bay culimmadu leeyihiin. darsigeenna ama duruusteennama guud ahaan aynu ugu tala galnay inaynu kaga hadallo mawduucii aynu ugu magac darnay fadlu cashru alawali min dilxijati wa axkaami alciidi waaludxiyati wa ayaami altashriiqi. intaas ayaynu ku soo koobaynaa. wixii aan waafaqay waa ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajintii, wixii aan gafayna waa anigiyo fahmi gaabnidayda iyo daalibnimadayda. والله أعلم وهو ولي التوفيق. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباده إنه قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.